saabsan Sweetcoin see lacag ugu samayn kartaa. Sweetcoin ma jira see lacag lagala soo baxaa, ma jira in lacag laga sameeyo. waa maxay Sweetcoin appkan ee dadka inta badan ee bulshada ay hadal hayeen. intaan muuqaalkan galin ka hor waxaan idinka codsanayaa inaad channelkan follow tiraahdaan, subscribe saartaan. waxa kale oo idinka codsanayaa Telegram group qaybta hoose ayaa idin dhigay. asxaab badan ayaa jirta halkaas ku jirto, ka badan 1000 iyo above ku jirta. waxaanu halkaas ku soo dhignaa online businesska, waxaanu ka sheekeynaa ganacsiga iyo fursadaha suuqa isleenahay dhalinta Soomaaliyeed oo ugu faa'iideyn kartaan. wax walba la taaban karo isleenahay isbedel ay ku keeni kartaa dhalinta ayaan la wadaagnaa. fadlan dhiirigelin noo tahay inaad subscribe channelka noo saarto, aad Telegram keenan aad follow tiraahdo si aad xogaha u dambeeyay muuqaalada ama maqaalada aan soo dhigno oo aad ka faa'iideysato. isbuuca ka horeeyay bishii horeyso waxaan wadnay web design oo ah inaan website dadka u sameeyno Google AdSense ugu xirno kaliya aan lacag ka qaadno $20 kaliya. marka ilaa ay wax ka faa'iideysatay 218 qofood ilaa haddana waa u socdaa. haddii aad diyaar tahay rabto inaad mustaqbalkaaga aad diyaarsato ama aad rabto inaad Google AdSense blogger aan noqoto lacag ka samayso, ama aad rabto inaad e-commerce online ka aad lacag ka samayso, fadlan qayb ka noqon kartaa. kaliya waa $20 kaliya. waxa weeye waa hosting iyo unlimited hosting, domain free ah, design lagu design kareynay. appkan horta waxa uu jiray 2018 ayaa mar arkay ilaa ay hadda waa u jiraa. waxa la degtay 90 milyan. targetkooda is leeyihiin ama expectigooda is leeyihiin inuu gaari doono waxa weeye 100 milyan in la degto. marka ujeedada laga leeyahay waxa ay tahay in dad badan oo socda oo cayilka iska dhima ama fit dadka inay noqdaan ay u talagaleen. appkan waxa maalgeliyo shirkado kala duwan, waxa xiriir la leeyahay partners kala duwan ilaa ay 600. waxa kale oo qaybta ugu weyn ee xiriirka u leeyahay tahay shirkad ama company ku yaala maxaa la wadankaasi Ingiriiska. waxa kale oo qayb ka ah dawladda Ingiriiska ah oo aad iyo aad u maalgelisa. waxa kale oo maalgeliya shirkado kale oo kala duwan. waxa kale oo xayeysiin dad badan oo caan ah. sababta loogu dan leeyahay waxay tahay in dadka lagu dhiirigeliyo in la socdo. dawladda Ingiriiska kale oo newska u dambeeyay kan akhrinay ku saabsan appkan markaan baaray waxa uu lahaa in diabeteska ama dadka sokorta qaba aad u soo badanaysay. sababta sokorta dadka ugu dhacana waxay tahay 80% in qofka fadhigiisu badan yahay, macmacaani wax badan oo cunay uusan sameyn wax maxaa activities ah. marka appkan sidiisa ujeedadiisu waa sidaas. waxaan rabaa marka appkan inaan gudaha u galno oo aan min bilow ilaa dhamaad aan ogaano future-ka mustaqbalka wuxuu leeyahay in coin-kan lacagtan loo sarifan doono ama uu shaqeyn doono mid leeyahay in lacagtaasi aad shaqeysatay uu noqon doono mid aad la soo bixi karto ama aad ku adeegan karto. midda kale ilaahay waxa uu leeyahay marketplace oo ah aad ka adeegan karto, waa shop center oo aad alaab ku iibsan karto, product aad ku iibin karto. waxa kale oo aad qayb ka noqon kartaa marketka laftigeeda in aad ku biiri kartid oo product aad ku dhex iibin kartid. marka waxa bariyaha ku mashquulsan marka xogtiisa dhameystiran inaan idin keeno. waqti aniga wax walba oo asleeyahay dadku faa'iido ay u leeyihiin waan baaraa, waan soo raadiyaa xaqiiqada dhabta ah. ilaa hadda wax withdrawal ah sameeyay ma jirto. withdrawal ma jirto. waxa ay rajeynayaan mustaqbalka in ay ku bedelaan coin caadi, cryptocurrency caadi oo kale ah, in qofkii uu helayo uu ku adeegan karo, wax walba ku qabsan karo mustaqbalka. mar haddii sending and withdrawal ay leeyihiin kulli lacag laga soo bixi doonaa. marka waxay ku xiran tahay marka stepka waxay leeyihiin hadda waa Janis dadka hadda maxaa la yiraahdaa coin-kaasi waxa sameeya maxaa la yiraahdaa in Janis u haystaan inay imika soo galaan ee lacagta shaqeeyaan, then hadhow u fudaanaysa inay u bedeshaan account-kooda wallet-ka. wallet mar haddii limaadana waxa laga yaabaa inay maxaa la yiraahdaa ka mid noqon doonto Binance, Coinbase, meelaha iyo walletyada lacag loola baxo cryptocurrency. marka future-ka waxay rajeynayaan in ay noqoto coin caadi ah, Sweetcoin caadi ah sida cryptocurrency oo kale ah oo wax investor wax kaaga baahneen. marka waxaan rajeynayaa xog dhameystiran aad ka hesheen. appkan la soo daga mustaqbalka wuxuu noqon doonaa cid garanaysa, laakiin hadda waa ku adeegan kartaa intaad soconto intaad coin aad hesho. wuxuu leeyahay qayb marketplace ah. waa in wadaagi doona muuqaalka oo inta qaybta dambe ayaan idin wadaagi doonaa muuqaalka dhameystiran gudihiisa aan gali doono insha Allah. wuxuu leeyahay marketplace oo product wax lagu iibiyo. waxa kale oo ka mid noqon kartaa partnership ayaa ka mid noqon kartaa oo ayaga waad ku biiri kartaa. waxa kale oo aad ku iibin kartaa alaab. marka information-ka buuxa waa sidaas. waxaan kaloo rabaa inaan gudaha u galno oo aan min step by step, one by one aan u fiirino insha Allah. ila socda muuqaalkan xiga adwaalida.
Soo dhamaantiin waxaan rabaa muuqaalkan inuu noqon mid aad iyo aad u dheer oo lagu caajiso. waxaan rabaa inaan soo koobo muhiimadda ay tahay. kulli waan fahamsanahay in abkan uu yahay ab jira la isticmaalo orodkaaga ama socodkaaga lacag kugu siinayo. marka waxaan rabnaa keliya marka lacag ma lagala bixi karaa, muxuu tarayaa mustaqbalka, maxaa laga rajeynayaa, intaas rabaa inaan muhiimadda marka ka hadlo. marka kow, sida arkaysa abkan wuxuu ugu shaqeeyaa in movementiga oo ah in aad lacag ku hesho dhaqaaqaaga ama inaad dhaqaaqdo oo lacag ku hesho. lacagtaas oo ah in maxaa la yirahdaa the employers base workers gym membership health insurance over discount for physical activities. government encourage physical work. Minaha governmentiga ayaa waxay dhiirigelinaysaa in maxaa la yirahdaa communityga ay sameeyaan wax maxaa la yirahdaa qofkii dadkii ku dhiirigeliya inay dhaqaaqaan, ay socdaan, wax badan dhaqaajiyaan. marka saas eegay company-gan ama abkan waxa badanaa maalgeliya company badan kala duwan oo sida xataa governmentiga Ingiriiska xataa laftigeeda xataa waa ay maalgelisaa oo waxa laga qaadaa Ingiriiska, dowladda Ingiriiska hoogaa lacag ayay ku maxaa la yirahdaa ku tabarucdaa. waxa kaleeto maxaa la yirahdaa qayb ka ah hay'adaha kuwaas oo maxaa la yirahdaa lacag ka qaada humanitarianka. marka waxaa waaye humanitarianka waxay sameeyaan in ay maxaa la yirahdaa ay dhiirigeliyaan dadka de socda. saada arkaysaan halkan waxaa ku qoran I work with the NHS, waxay la shaqeeyaan NHS oo ah South West London Health and Care Partnership. waxaana maxaa leeyahay type of behavior change program that this week ago introduced at 2 times. Macnaha waxay tahay in ay halis ugu jirto ugu yaraan 10 milyan oo dada in ay diabetes ku dhacaan, sokor ku dhacaan. taas awgeed ay dowladda ama hay-adahan oo kaleeto ay ku maalgelinayaan qofkii dadkii lacag lagu siiyo si ay dhiirigeli ugu noqoto ay ku socdaan. bal ka waran lacag haddii lagugu siiyo socod kaliya inaad socoto, in aad dhaqaaqdo. marka mustaqbalka marka ayaga waxay rajeynayaan in halka sida arkaysa mustaqbalka ayaga waxay rajeynayaan in ay noqoto new maxaa la yirahdaa crypto oo ah in maxaa la yirahdaa suite waxaa waaye in marka inaad la degi kartid suitekaaga walletkaaga gashan kartid, dan kadib stepkaaga aad socotid verified ku samayn kartid, dan lacag lagu qaaday kunka step inuu yahay umaleynaa hal sweet coin inuu yahay. sida arkaysaan halkan waxaa dhaqaalaha maxaa la yirahdaa sameeya arkaysaan lacaga ugu badan waxaa siiya hay-adaha humanitarianka. sidaad arkaysaan ninkan Olzej, ninkan arkaysaan Anthony Delk, kan waa aab aad iyo aad cajiib u ah. marka su-aasha ugu muhiimka ah ee loo baahan yahay waxa ay tahay waa halkan. qof walba waxa uu sugayaa su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay waa kan: can I cash out my sweet coin to PayPal or bank account? lacagtaada ma la soo bixi kartaa ama PayPal ku shubo ama Bitcoin ama cash, waxaad doonto withdrawal ma samayn kartaa. halkan markay ku caddahay marka xaqiiqdii wax withdraw ah la samayn karo, lacag cash la bixin karo ma jirto. laakiin bedelkeeda waxaad ku iibsan kartaa product. laftigeedu waa muhiim, iyada laftigeedu waa waxyaalaha aad iyo aad loo baahan yahay oo ah in micnaha hadda aad ku maxaa la Amazon ama PayPal ama futures aad ku iibsan kartid. dhexdooda laftigeedu wuxuu leeyahay marketplace aad alaabta ku iibsan kartid oo aad maxaa la yirahdaa alaabtaas aad ku bedelin kartid maxaa la yirahdaa cash. waxaa kaleeto jirta in aad laftigooda xataa aad ugu deeqi kartid. waxaa jirta hay-ada badan oo NGOs ah oo charities ka shaqeeya sida arkaysaan oo environmental humanitarianka ah. marka humanitarianka marka waxa ay qabtaan dadka way caawiyaan. marka waxaan marka abkan waxaa dabada uu ku haya waxay tahay in abkan dad badan oo fadhiya oo dadkii socodkii waa ay kari waayeen adduunka markii la fikiray. marka waxaa la rabaa qofka sidii looga socodsiiyo xanuunada iyo sokorta iyo macaanka iyo waxaas la yareeyo. marka sidaas awgeed ayaa abkan loo sameeyay. marka waxaan rajeynayaa ka faa'iidaysanteen, aad fahanteen, waa mahadsantihiin. si share garay asxaabtiin la wadaaga abkan. marka intaas xog ayaan ka hayaa, xogkiisa dhammaystiran waa intaas. 9 milyan ayaa iska diiwaan gelisay. predictionkan waxa uu yahay 100 milyan inay iska diiwaan gelisay. marka asxaabtiina la wadaaga, si share gareeya. mustaqbalka waxa laga yaabaa inuu noqdo hadda waxay yiraahdeen September waxaan muddo doonaa caadi coin caadi inuu maxaa la yiraahdaa aad ku iibsan kartid coinkaaga, sweet coinkaaga in aad caadi e-wallet ka toos kugu dhacayo oo noqon doono sida cryptocurrency oo kaleeto inuu noqon doono. marka muhiimadu waa waxa laga yaabaa in Janis meeshaas ay noqoto. marka share gareeya asxaabtiina la wadaaga, waa mahadsantihiin.
muuqaalkan halkaas ugu egyahay fadlan telegramkan kusoo biira youtube-ka subscribe saara laag badan saara si asxaabtiina u gaartiin waa mahadsantihiin maalin wanaagsan habeen wanaagsan casri wanaagsan hadba xilliga ay tahay halkan waa baqaad ha qabtiraha dhalinta soomaaliyeed thank you maalin wanaagsan